sanadkii dhamaaday ee 2015 ayay ahayd markii dayactir balaaran lagu sameeyay garoonka diyaaradaha magaalada Laascaanood isla mar ahaantaana si rasmi ah loo daahfuray waxa intaas kadib garoonka diyaaradaha Laascaanood uu ahaa mid si xawliya u shaqeeya isla mar ahaantaana ay maalin walba ka degto diyaarado ganacsi waxa haatan dayac iyo burbur laga dareemaya wadada isku xidha magaalada Laascaanood iyo garoonka diyaaradaha waxaana markii u horeysay booqasho ku tagay Ismaaciil Maxamed Tanyele bidixo oo kamid ah qurba joogta gobolka Sool waxa uu sheegay inay wax ka qaban doonaan dayactirka wadadaasi maanta waxaan nasiib u yeelnay inaan booqano airport Laascaanood oo aan rabno kaabayaasha ugu muhiimsan ee aan wax ka qabanno meesha aan ka bilaabi doonaa insha Allah waxa weeye marka laamiga laga degayo intaas oo kiiloomitir u soo jira buurahaas dhinaceeda insha Allah bismillaahi kariim waxyaalaha ugu horeeya ugu muhiimsan ka qaban doonno hadii Allah yiraahdo airport-ka oo muhiim ah oo la rabo qof kasta inuu wax ka qabto oo maarif istiraatiiji ah magaalada Laascaanood oo aad iyo aad magaalada ugu intaan magaalo booqanayo magaalada ugu quruxda badan oo dhisan sidii istiraatiijiyo oo loogu talagalay sidii Yurub oo kale maarif inuu waxana qaado bismillaahi kariim ilaahay waxaan ka beenaa inuu nala degdeg waxana loo ka qabto wadada airport-ka ilaa magaalada isku xidha ووضع ديريا ووضع بابا وضع حدولنا هنا هذه وحنا لو كقبطو مولد علي مولدان فوقان أرق حرطة ستار مقالة الله سبحانه